ترى waxaan sii lahaa xiriirka Soomaaliyeed shaqadiisa daacadda u noqdo shaqada uu haayo daacadda u noqdo joogo Nuur Amiin waxa jooga Fareere waxa jooga Geela Soomaaliya marka waxa jooga Yubu waxa jooga Cabdi Jool Soomaaliya adkaysi illa tixgeliyo suufi guud la jooga waxa soo dhan looma jeedo kadib guuldaradii xulka qaranka Soomaaliyeed ay kala kulmeen xulka qaranka Cumaan kulan ka tirsanaa isreebka FIFA Arab Cup ayaa waxa soo baxay dhaliilo loo jeedinayay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaana lagu eedeynayay inay ka gaabiyaan howlihii loo igmaday ee ahaa inay waqti badan geliyaan diyaarinta xul adag oo leh ciyaaryahano tayo leh oo dhan walba ka dhisan inkastoo wiilashii matalayay xulkeena ay soo bandhigeen ciyaar ay aad ugu qanceen ummadda Soomaaliyeed haddana waxaa jiray dulduleelo lagu eedeyn karo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya sida qaabka loo xulay waqtiga diyaar garowgoodii oo aad u yaraa iyo in xilli dambe la ceyriyay Cabdilatiif Salaah oo ahaa tababarihii xulka Soomaaliya oo dhalash ahaan ka soo jeeday dalkaasi Morocco kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed daawadama isweydiisay sababta iyo baahida keenaysa in xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu markasta ku dhiirado in xulka tababara uga dhigo ajaanib ayadoo la heli karo ciyaaryahano hore oo magac iyo tayo ku leh kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdallah Umar Cali oo ku magac dheer Cabdallah Quuq kana tirsanaa ciyaaryahanadii xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii Batroolka ee sanadihii 70-meeyadii Cabdallah Quuq aan wax ka weydiiyay sida uu u arko in xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay badanaa macallimiin ka raadsadaan wadamada kale ee Afrika ku yaala wuxuu sidoo kale baaq u diray xiriirka uguna baaqay inay macallimiin uga dhigaan ciyaartoydii hore ee qaranka u soo ciyaaray tara waxaan sii lahaa xiriirka Soomaaliyeed shaqadiisa daacadda u noqdo shaqada uu haayo daacadda u noqdo maaragtay jeclaado dhalinyarada Soomaaliyeed macallimiintii ciyaartoydii Soomaaliyeed oo fariistaa joogaan oo ka fiican waa in la qiimeeyaa ya marka intii ajnabi la keen lahaa ninkii yaati oo waxba ahayn la keeni lahaa ya waa falxume Soomaaliya marka waxaan dhihi lahaa shaqada ay haayaan Soomaali oo haayaan qabiil uma haayaan waa in taas ku daraan talada Soomaaliya marka yaa laga dhigayaa tababare oo noqon kara hadda as leedahay waa xulkan meel fiican u gaarsiin kara waxa kamid ah Scott oo ciyaarihii ardayda lagu qabtay qadarka Sacuudiga ilmihii yaraa la keenay oo ciyaar fiican muujiyeen Soomaaliya loo riyaaqay waxa jooga Nuur Amiin waxa jooga Fareere waxa jooga Geela Soomaaliya marka waxa jooga Yubu waxa jooga Cabdi Jool Soomaaliya adkaysi illa tixgeliyo suufi guud la jooga waxa soo dhan looma jeedo marka kuwaas macallimiin laga dhigo kuwaas inay macallin noqdaan waa noqon karaan waayo uma baahnaba sheegid haddii adiga lagu jeedin oo dana kale la wato oo ninkan lala soo galayo maaragtay heshiis ya qandaraas marka oo laga nuskaas adaal nuskan ana leh maxaa marka soconaya waa gartay soo marka hadda waxaan rabaa dhamaan ku daawanayaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo dhalinyartii sportiga jecelaada Soomaaliya muxuu yahay baaqaaga oo aad ugu baaqi lahayd sportiga Soomaaliya nooc walba waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo way fiican yihiin way dadaalayaan waxay u baahan yihiin in maaragtay dhaqaaleeyo waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada waa salaamantihiin dadaala waa la gaari doonaa xiriirka Soomaaliyeedna walaalaheena waxaan leeyahay shaqada daacad u noqda shaqada ah haysaan Soomaali ah u haysaan qabiil uma haysaan Soomaaliya ka kubadda cagta kor u qaada dhulka liina siyaasiyiinta inoo soo noqonina أنا تأسف كوان كان نكى نسيب ويشة هم أمره نكى نسيب ويالنا أسوق وقت كيس كحريق الصوماليات أي كانوا مهندسين وأيوه دجالة الجلو حكستاس كجلو الأمر كيسوا حفتين لكن هل ماذا يكون يدسين أنا يقول في عنته ولا يقول في عنيه الباب كفورة تذكر تشتا مارد taas meel walba gaar
si kastaba ha ahaatee waxaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya looga fadhiyaa inuu ka jawaabo eedeymahaasi ay jeedinayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo xitaa qayb ka yahay kabtankii matalayay xulkeena qaranka Soomaaliya oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta sheegayna in mas'uuliyadda guuldaradaasi ay qaadayaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wuxuuna ka codsaday in xiriirka uu la yimaado qorshe cad oo lagu horumarinayo kubadda cagta Soomaaliyeed. Allah yow tusnaadnay ubta orodka dheeriyo basket gacanta